Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Banooda Media waxay halkan idinku soo gudbinaysaa barnaamijyo kala duwan. Haddii aad member ama xubin ka tahay channelkeena waad mahadsan tahay. Haddii aadan member ka ahayn, fadlan nagu soo biir. Qisada maanta waa qiso cajiib ah oo dhab ah, waxay ka dhacday Muqdisho, Soomaaliya. Waxayna ku saabsan tahay qiso nin iyo xaaskiisa. Ninka oo dibadda ku maqnaa in muddo ah oo waddanka booqasho ku yimid. Dhegaysi wacan. Nin ayaa mar alaale markuu guursada, asagoo guur cusub ah ayaa wuxuu u dhoofay waddanka Sacuudiga si ugu shaqaysto. Marka Sacuudiga yimid wuxuu shaqo ka bilaaway shirkad. Bil kasta wuxuu biil u diri jiray xaaskiisa iyo hooyadeeda oo hal guri ku wada noolaayeen. Biilka waxaa u dheeraa kharashyo kale iyo qalab ama alaab u diri jiray. Ninka marka dhowr sano shaqaynayay wuxuu helay iqaamad ama dal ku joog. Wuxuu go'aansaday in uu fasax u aado waddanka si uu u soo booqdo xaaskiisa, waalidkiisa, ehelka iyo qaraabada ku nool Muqdisho, asagoo cidna ku wargelinin safarkiisa. Maadaama xilligaas ay diyaaradda tegi jiray Muqdisho ay cariiri ahaayeen, ninka wuxuu soo raacay diyaarad laga leeyahay waddanka Kenya, Kenya Airways, wuxuuna yimid Nairobi, caasimadda Kenya. Maalin kadib wuxuu u soo dhoofay Muqdisho. Diyaaradda waxay Muqdisho ka soo degtay 5 galabnimo ama qorax dhaci. Ijraa'aadka ama howlaha garoonka marka uu dhammaystay waxay ahayd fiidnimo. Wuxuu si toos u soo aaday gurigiisa. Marka uu guriga tegay waxay ahayd qiyaastii 7 ama 7:15 fiidnimo. Markuu guriga yimid, irida ama albaabka waxaa ka furay gabar oo reerka u kaalmaynaysay, taas oo guriga ku soo biirtay marka uu dhoofay. Wuxuu gabarta weydiiyey Hiblaaye aawaye. Waxay ugu jawaabtay Hiblaaye iyo ninkeed Shaneema ayay aadeen. Ninkii waaga ayaa ku bariyey asagoo yaaban oo arrinta uu cuntimi weysay ayuu ka soo tegay guriga, waxna uma sheegin gabarta. Wuxuu tegay baar ama biibato asagoo wato boorsooyinkiisa. In muddo ah ayuu wuxuu fadhiyey goobtaas. Wuxuu guriga ku soo noqday habeennimo wakhti dambe, irida waxaa ka furtay gabartii guriga joogtay, waxayna ku tiri Heblaayo iyo ninkeed mar hore ayay imaadeen wayna seexdeen. Ninkii wuu isku naxay, waxaa ka soo daatay dhidid waaweyn, asagoo xanaagsan wuxuu haraanti ku dhuftay ilbaabka oo ku dhex dhacay gudaha qolka. Wuxuu gudaha qolka ugu tegay xaaskiisa iyo nin busto ama go' hoosta uga jiraan. Asagoo yaaban oo dhididayo ayuu wuxuu ku yidhi meeshiina ha ka soo kicinina, wuxuu gabarta u diray in ay soo kiciso ama soo toosiso hooyada oo qol kala degan. Marka hooyada soo gashay qolka wuxuu ku yidhi, waad og tahay in aniga qabo gabartaadii, waxayna soo xaraysatay nin, waxayna ii cadaatay adiguna in aad raali ugu tahay. Waan idiin soo beelaayay, wax alaale waxaad u baahaneeda ayaan idii soo diri jiray. Adiga iyo gabartaadii waad i khiyaanteen, waxaad igu samayseen wax diinta Islaamka iyo dhaqan suuban ka baxsan. Ninka wax tallaabo kale ma uusan qaadin, wuxuuna ku yidhi xaaskiisa, waxaa inoo ballan ah maxkamadda berito. Subaxii ninkii iyo xaaskiisa waxay ku kulmeen maxkamadda, sidaas ayuuna ku furay. Muddo yar kadib wuxuu dib ugu soo noqday Sacuudiga asagoo dib u soo ceshtay dahabkii iyada ugu talagalay. Gunaanad, guurka waa shay qaali ah oo Allah noo baneeyey, waxaa loo baahan yahay in uu ku dhisnaado aamanad, isfahan, kalgacayl, farxad, kalsooni, ixtiraam iyo kala dambayn. Qisada maanta intaas ayay ku eg tahay, sidaas iyo nabadgelyo.